بسم الله الرحمن الرحيم. شركة شرايد وحنا halkan ku qabanaya maanta anigoo ah gudoomiye xogeenka xisbiga kulmiye ee degmada oo halkan ka sheegayo sababaha isku casilayo anigoo ah Cabdisaaq Maxamed Nuur markaan arkay wada shaqeynta iyo midnimada xisbiga kulmiye iyo hadafkii ujeedadu ka leeyahay degmo ahaan in haba yaraatee ayna jirin wax ku ool ah oo aan dadka wax u soo jiidi karaya iyo waxa ka iibsamaya toona anigoo ah gudoomiye xigeenka waxaan maayirka Maxamed Aamin Cumar Cabdi maalintii uu Musabbixi midday Itoobiya ka soo degay uu ka ballan qaaday isagoo wasiirada iyo dhammaan xisbiga kulmiye u ballan qaaday inuu xafiiska degmada uu agabayn doono still hadda ilaa hadda aan haba yaraatee wax uu agabiyay ayna jirin fadhi yaroo dadku ay ku qaylaan aan ahayn mooyaane uu haba yaraatee wax computer stationery ayna xafiiska dhaxoolay hase yeeshee markaan uu tagay maayirkii wuxuu igu joogay aniga soo bixinay still ilaa hadda aan joogno maayirkii wuxuu sameeyay ama wuxuu soo lacagay haba yaraatee ma jirto iyadoo baahiyaadkii ugu waaweynaan uu maayir ku fadhiyo oo maayirkan uu aqaan anigu shakhsiyan intii hore maayir wax qabanayaan waa istay laakiin hase yeeshee wuxuu noqday maayir dhinac Cumar oo aad u aragto dadka xaafadooda ama beesha uu ka soo jeedo uu taanjabal uu taagan yahay hase yeeshee midnimada iyo danaynta xisbiga kulmiye uu haba yaraatee guna doonay maayirka maayirka waxaan ku tilmaami karaa anigoo ah gudoomiye xogeenkii xisbiga kulmiye ee degmada maska qorta ka duuban ee kulmiye la dhaqaaqi ilaahay ayaan maayirhan oo xaqiiqsanay wuxuu u qabanayaa haba yaraatee uu ballan qaadayna ma jirto ta kale markaad eegto isku xidhka degmada iyo gobol ahaanba haba yaraatee wax ilaaqaadka ay wada leeyihiin maba aha wax la taaban karo hase yeeshee waxa gacanta ku haya qofaan xisbiga kulmiye aan lugta kula jirin oon meel ka tirsan yahay ma aanad garanayn cid soo magacawday aanad garanayn ayuunba mar walba hawsha xisbiga gacanta ku haya isaga wixii oo dhanba wixii kulmiye qaban lahaaba maayirka qabanaya haba yaraatee wax kastoo ruutirka lacagintiisii baa loo daba fadhiisanaya maayirka haba yaraatee markaa waxaan u arki karnaa inayna xisbiga kulmiye dhammaantii gibli una ka shaqaynay maayirku kaliya ka shaqeey dadkiina ay ka dadayaan maayirkiiba aniga iyo taageerayaashayduba waxaan ugu baaqaynaa in kulmiye markaan aragnay inayna waxba oolin haba yaraatee wixii cilmiga aqoon lahayn aan laga tixgelinaynin inaan aniga iyo shicibkaygiiba hal aliyaalkii nadanaynaysa ee midnimadu ku jirtay ee aqoonaan tixgelinaysa inaan lafteedu aniga shicibkaygiba u digirogin